Ku soo dhawaada barnaamijka labada magaalo oo aynu maanta inoogu marti yihiin labada magaalood ee kala ah Seoul oo ah caasimadda South Korea iyo Singapore oo ah caasimadda waddanka Singapore. Ku soo dhawaada. Seoul waa magaalo weyn oo leh jidad casri ah iyo suuqyo waaweyn oo soo jiidasho leh. Waxay ku taal waqooyi galbeed Kuuriyada Koonfureed. Istiraatiiji ahaan waxay dhacdaa webiga Han River. Waxaa ku nool 10.29 milyan oo ruux. Luqadda guud ee laga hadlo waa Korean. Sidoo kale waxaa jira luqado kale oo laga hadlo sida English iyo Japanese. Luqadda Ingiriishta waxaa ku hadla dadka ka yar 40 sano jirka. Sidoo kale luqadda Japanese waxaa ku hadla dadka ka waaweyn 40 jirka. Dadka magaalada degan boqolkiiba 19.7 waxay haystaan Christianity, halka 15.5 boqolkiiba ay haystaan diinta Buddhism-ka, halka 7.9 boqolkiiba ay haystaan Catholic. 56 boqolkiiba ma haystaan wax diin ah, halka 1 boqolkiiba ay yihiin Muslimiin. Dalxiisayaashu goobaha ay tagaan waxaa ka mid ah Seoul Tower. Waa dhisme aad u dheer oo dhererkiisu gaadhayo 480 mitir. Sidoo kale waxaa la dhisay ama la hirgeliyay sanadkii 2005. Si aad u hesho dhaqanka soo jireenka ah ee Kuuriyada Koonfureed iyo qaab dhismeedka, waa inaad booqataa xaafadan. Waxay leedahay muuqaallo ama guryo ku tusinaya dhaqankii soo jireenka ah ee Kuuriyada Koonfureed, waana meel aad iyo aad u qurxoon oo aad u soo jiita indhaha dalxiisayaasha halkan imanaya. National Museum Korea. Halkani waxay muujinaysaa taariikhdii cajiibka ahayd iyo farshaxanimadii Kuuriyada iyo dadkii Kuuriyaanka ah. Madxafkan oo ah midka ugu weyn qaaradda Aasiya wuxuu ku yaalaa degmada Yongbyon. Halkaas waxaad ka helaysaa taariikhyo iyo farshaxanimo, sawir gacmeedyo iyo farshaxanimo kale oo ay weheliso waxyaabo badan oo isugu jira walxo iyo sawiraan cajiib ah. Singapore waa mid ka mid ah magaalooyinka aadka u horumaray. Waxay dhacdaa koonfur-bari Aasiya waxayna u dhaxaysaa Malaysia iyo Indonesia. Singapore waxay leedahay dhul ballaadhkiisu dhan yahay 724.2 kiiloomitir oo laba jibaaran. Tirada dadka ku nool waa 5 milyan iyo bar. 74.2 boqolkiiba dadka Singapore waa dad Chinese ah oo indho yar ah. 4 luqadood ayaa laga hadlaa, waxayna kala yihiin Malay, Tamil, English iyo Mandarin. Waxaa waajib ah in iskuulada waddanku ay ku baxaan luqadda Ingiriiska. 33.2 boqolkiiba waxay haystaan dadka magaalada ku nool diinta Buddhism-ka, halka 18.8 boqolkiiba ay haystaan diinta Christianity. 14 boqolkiiba waa Muslimiin. 5 boqolkiiba waa Hindus. 18.5 boqolkiiba waa wax diin ma haystaan. 1 boqolkiiba waxay haystaan diinta Sikhism-ka.